wax la'aanta ama faqiirnimada heerkee ayay idin gaarsiisay baa niman la weydiiyey. kow mid baa yiri heer aan ariga hormaraya ku fakaray inaan iibsado iyadoo aan midabkoodii hore rinji ku bedelayo, haddii uu madow ahaa inaan rinji cad mariyo dabadeedna aan dib u gado. labo mid kale yiri heer aan saaxiibtay waco oo aan dhaho haniyey horta mid kale oo aa shukaansato miyuuna jirin aad lacag nooga soo amaahatide. saddex midna waxa uu yiri saddexda waqti ayaan mid hurdo kaga boodsin jiray cuntada ilaa uu gastric ama aan gaas la xanuunsaday oo aan dhakhtarka xitaa dhaqaalihii iga bixi lahaa aan ku fakaray inaan ku cunteeyo. afar mid kale baa yiri heer waxa aan gaaray dadku ay wadada iga leexdeen xataa kuwa doorashada ku jira marka aan dhaho waan idin dooranayaa ayay iyaguna dhahayaan armaya iska daa waxba ha isdhibin siduu ilaahay dhaho unbay noqone adiguna waxba ha isdhibin. shan heer waxa aan gaaray buu mid yiri aan salaamo dad aanan garanayn oo aan ku qoslo wax walba oo ay dhahaan. lix meelaha ay ila gashay waxaa ka mid ah inaan gado dharkayga kuwa aan ugu jeclahay ayuu yiri mid. toddobo buskud deeqa caafimaad darro la igu keenay baan dib u sii iibin jiray markaasaan busaaradda isaga bixin jiray ayuu mid kala dhahay. haddaba daawade heerkee ayay adiga kula gaartay?